Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta saaxiibada aan nahay soo dhowaada. Waa muuqaal cusub aan ugu talagalay dadka u tahriibayo Latin America maadaama wadadii Senegal ay dib loo furay, taasoo markaas la mari doono badda u dhaxaysa wadanka Senegal iyo Brazil, Suriname iyo Venezuela. Sida markaas lagu tagi doono wadada ugu fudud ee loo marayo iyo inta lacag markaas ay qaadanayso si loo maro, maadaama maalmihii dambe ay adkeed wadadana in la maro. soo dhawaada saaxiibayaal, waa walaalkiina Azaam. haddii uu yahay markaaga ugu horreeyna soo booqday, fadlan YouTube-ka subscribe noo saar, muuqaalkana noo share gareey. soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. ku dhawaad 42 maalmood ayaa ay xirneed wadadani in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay ka gudbaan, maadaama muqallasiinta oo joogay wadadani isku xirta badda dhex marta Senegal iyo sidoo kale Brazil ay aad uga adkeed dadka inay dhoofiyaan, maadaama dawladdii Senegal ay ogaatay in marinka ugu fudud ee uguna sahlan ee loo maro wadamooyinka ama wadooyinka dhaca Latin America ay tahay wadadani. taasi ayaa keentay in dib markaas loo celiyo muwaadiniin Soomaaliyeed ayaa ku xayirnaa wadankan Senegal, ayagoo markaasi ay u tageen si ay ugu tahriibaan halkaasi ama ay u maraan badda u dhaxaysa ee wadanka Senegal iyo sidoo kale wadamada Latin America, ayagoo muddo ay ku sugnaayeen halkaasi, taasoo haddeer ay fududeysay inay markaas ay kasii baxaan maadaama dawladda war kale ay ka soo saartay. haddaba muwaadiniintan Soomaaliyeed ee ka gudbay xadka u dhaxeeya markaas ama badda u dhaxaysa wadanka Senegal iyo Brazil ayaan markaas waxaan idinka siin doonaa xog dhameystiran sida markaas ay ku gudbeen, inta lacag markaas ugu baxday iyo inta maalmood ay ku qaadatay iyo wadada riskigeeda. inta Soomaaliyeed ee ku sugnaa dalka Senegal muddo 42 maalmood ayaa haddeer gaaray wadanka Venezuela, ayagoo markoodii hore ay markaas ay ka degteen wadanka Brazil, waxayna mareen Guyana iyo sidoo kale wadanka Suriname. haddeer waxay ku sugan yihiin wadanka Venezuela. waxaa xusad mudan in muwaadiniintan Soomaaliyeed ee ka soo gudbayay badda u dhaxaysa Senegal iyo sidoo kale ee wadamada Latin America ay aad uga adkeed si fudud inay ugu soo gudbaan, maadaama waayadii hore kaliya loo mari jiray ama la qaadan jiray 2 doon, midna markaas ay ku geynayso xadadka u dhaxeeya ama qadka dhexe ee markaas wadamada Latin America, midda labaadna ay ku geyn jirtay markaas wadanka adiga aad u baahan tahay. haddeer ay noqotay inaad 4 doon isku ka dhiibo, doonta ugu dambeysana ay ku geyso wadanka markaas adiga aad doonayso, sida wadanka Brazil, Venezuela iyo wadanka Colombia iyo Suriname. muwaadiniintan Soomaaliyeed ayaa markaas xusay in lacagtii ay aad u badiyeen ayna gaarayso lacagta $4,200, waxayna ku geynayaan wadanka Colombia, balse waxaa xusad mudan inay tahay doonta mid safe ah, taasoo si nabadoon aad ku tagayso wadanka Colombia. xitaa haddii aad markaas u baahan tahay waxay ku sii geyn karaan ilaa Guatemala, maadaama ay yihiin kuwa muqallasiin ah oo markaas ka shaqeeya wadooyinkaasi isku xira Latin America iyo sidoo kale wadamada dhaca qaaradda Afrika. haddii aad tahay muwaadin Soomaali oo u baahan wadadani inuu maro ama xadka markaas Mexico iyo America uu doonayo inuu si fudud ku tago, wadadani waxay ka mid tahay wadooyinka ugu sahlan ee loo maro xadadka markaas u dhaxeeya Mexico iyo America ama wadamada markaas Latin America. muwaadiniin Soomaaliyeed oo badan ayaan hore ugu gudbeen, kuwa qaarna markaas haddeer ay rajeynayaan inay markaas ay ka sii gudbaan wadadan isku xirta Latin America iyo sidoo kale wadamooyinka dhaca qaaradda Afrika. haddii aad haysato baasaboorka Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya ayaa aad kuugu fudud wadadani inaad marto, kaliya waxaad qaadan doontaa wadanka ee loo yaqaano Senegal viisihiisa, waxaadna tagi doontaa caasimadda wadankan Senegal ee Dakar, adigoo xagga aad joogi doonto ilaa 3 maalmood 4 maalmood. haddii aad hesho markaasi muqallasiin ay ku anfacaan lacagtan aad meel kala dhigataan, waad ka bixaysaa oo si toos waxay ku geyn doonaan wadanka Brazil. waxaa xusad mudan in marka aad tagto wadanka Brazil aad xor u tahay in markaasi aad raadsato muqallasiin kale iyo in markaasi iyaga ay ku sii wadaan ayna ku geeyaan wadanka Guatemala, maadaama ay yihiin muqallasiin halkaas ay u badan yihiin, waana kuwa ugu badan ee markaas ka shaqeysta Latin America, waxayna iskugu jiraan kuwa Afghanistan ah, Syrian, Afrikaan iyo Turki, iyagoo markaas halkaasi ay ka shaqeynayaan laga soo bilaabo 70meydii ilaa haddeer aan joogno 2023. muwaadiniin Soomaaliyeed oo badan ayaa markaas aad ugu adag inay qaataan fiisaha ee wadanka Senegal amaba ay doonayaan sida fudud ay ku heli karaan. haddii aad joogto wadanka Soomaaliya, Kenya iyo meelo kale markaas oo ama dalalka markaas dariska aan nahay, waxaa ku fudud inaad qaadato fiisa